golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa dood kulul ka yeeshay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasoo habeenkii 19aad ay ku hardamayaan ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka oo diidan si maamulidda Soomaaliland ee magaaladan kadib 15 sano oo dilal qorshaysan ay magaaladan ka dhacayeen Soomaaliland ay xal u weyday maalmihii la soo dhaafay dagaallo culus oo magaaladan ka dhacay ayaa si weyn la isku weydiinaya cidda mas'uuliyadooda lahayd golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa warbixin laga jeediyay waxa lagu sheegay in ka badan 100,000 oo ruux oo shacabkii magaaladan ay barakaceen xaalad gargaar ay u baahan yihiin oo halis badan ay haysato taas oo warbixinta loo jeediyay golaha ammaanka loo sheegay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo bini'aadantinimo sida gargaarka loo maareynayo iyo halka la marinayo ayaa dooda iyana la sheegay inay ka taagan yihiin dadka deegaanka gaar ahaan guddiga ay ka tashiga gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxay wakiilada caalamiga ah maalmo ka hor u gudbiyeen in wax gargaar aan loo soo marin karin Hargeysa waxay sheegeen si madax bannaan ay u soo gaari karo gargaarka aadanaha ee loogu talagalay dadka barakacay oo hay'aduhu ay si toos ah u qaybiyaan inkastoo Soomaaliland ay si weyn uga carootay arrintaasi haddana xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee hadlay waxay si isku mid ah xoog u saareen in gacan aamine la geliyo gargaarka aadanimo ee loogu talagalay dadka dhibaatadu ay soo gaartay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa loo soo jeediyay inay qaadato doorkeeda ku aadan arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood xubinta ugu sarreysa Mareykanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay dawladda Mareykanku si weyn uga walaacsan tahay waxa ka socda Laascaanood waxay sheegtay in lagu xisaabtami doono oo aan la isaga heli doonin duqeymaha xarumaha caafimaadka goobaha cibaadada iyo guryaha rayidka dadka deegaanka waxay sheegtay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay qoraal ay ku cadeynayso in iyagu ka tashigooda ay xaq u leeyihiin isla markaana arrimaha gudaha ee Soomaalida waxay sheegtay in looga baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo waxay sheegeen in cid kasta oo qayb ka ah tallaabooyinka dagaalkan iyo saameeyaashooda tallaabo laga qaadi doono waxaana ay ugu yeertay dhammaan dhinacyadu inay isugu tagaan miiska wada xaajoodyada si loo xalliyo dhammaan tabashooyinka la kala qabo hayeeshee dadka deegaanku waxa ay soo jeedinayaan ciidanka Soomaaliland ay isaga baxaan gobolka Sool tanjiraha dawladda Mareykanka u qaabilsan fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay kala oo sheegtay dhawaan ay tagtay Soomaaliya isla markaana dareenkeeda ay la wadaagtay madaxda Soomaalida iyo walwalka ay ka qabaan xubnaha kale ee golaha ammaanka ee hadlay oo ka mid yahay safiirka Shiinaha waxay sheegeen in ka walaacsan yihiin waxa ka socda Laascaanood duqeymaha rugaha caafimaadka cibaadada iyo masaajidada ayay sheegeen inay tahay in laga xisaabtamo hubka la adeegsanaya waxay sheegeen loo adeegsanayo dad rayida oo banaanbaxyo sameynayay oo ciidanka Soomaaliland ay si toos ah u toogteen marka laga tago hadallada kala duwan ee golaha ammaanka qaramada midoobay fadhigooda laga jeediyay nuxurkuna uu ahaa in dadka Laascaanood ay xaq u leeyihiin in aayahooda ka tashadaan dawladda Soomaaliyeedna looga baahan yahay in arrintaasi ay si degdeg ah u farageliso haddana dhinaca kale dadaalka diblomaasiyadda ee xoogga badan ayaa socda waa hadallo telefoon oo dhex maray Soomaaliland madaxda ugu sarreysa iyo wakiilada caalamiga ayaa saacadihii la soo dhaafay meel mar noqon waayay inkastoo toddobaadkii hore si weyn la isugu hanjabay in dhammaan gargaarka aadanaha iyo mashaariicda horumarinta hoos loo dhigi doono Mareykankuna ay baajiyeen tababar ama dhoolatus military oo ay ka samayn lahaayeen berbera haddana sidaas oo kale safar 26 bishan uu ku tagi lahaa Hargeysa safiirka dawladda Mareykanka u jooga Soomaaliya ayaa meesha laga saaray waxaana beddelkiisa la diray xubno ka hooseeya safarka sidii hore loogu qorsheeyay sabab la xiriirta colaadda Laascaanood sida ay qirayaan ila wareedyo muhiim ah Mareykanku waxa ay si toos ah ugu sheegeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in tallaabo laga qaadi doono 10 ka mid ah xubnaha saaxiibadiisa siyaasadeed wiilashiisa iyo xubnaha taliyaasha ciidamada iyo wasiirada ee ku lug leh dagaalka Laascaanood Mareykanku waxa ay soo jeediyeen shuruudo cusub oo ah in ciidanka Soomaaliland laga saaro dhammaan aagaga magaalada lana geeyo goob xabadda ka fog magaalada ama labada dhinacba ay iska arki karaan shacabka doonaya in aayahooda ka tashadaan markaasi kadibna ay tahay miiska wada xaajoodyada in la isugu yimaado inkastoo ay qodobkaasi weyn u diiday Soomaaliland haddana isfaham waa culus ayaa hareeyay wada hadallada Hargeysa iyo Mareykanka ee ku wajahan xaaladda magaalada Laascaanood sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxa soo socotay hanjabaad toosa iyo waliba cunaqabatayn la saari doono xubno ka mid ah saaxiibada madaxweynaha qoyskiisa golaha wasiirada taliyaasha ciidamada iyo shakhsiyaad ku lug leh dagaalka magaalada Laascaanood wali xaaladdu uma muuqato inay caadi ku soo laabanayso
Somaliland waxay isku diyaarinaysaa qaadida mid ka mid ah weeraradii ugu xoogga badnaa inkasta oo shalay ay ku fashilantay in magaalada ay la wareegto si fadhiga golaha ammaanka ee caawa arrintu ay u harayso haddana berrito mar kale waxa ay qabanqaabinaysaa duulaan kale oo ay qaado 4 maalmood ee nagu soo wajahan ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka